isugu yimiday maamulka heer degmo iyo heer gobol iyo qaybo ka mid ah golaha wasiirada iyo xildhibaanada saraakiisha ciidamada qaybaha kala duwan hadii military tahay hadii police tahaba iyo odayaasha dhaqanka ku dhaqan degmada Jowhar isugu yimiday maanta shirkaas wuxuu ku saabsanaayay dhacdadii foosh xumeed ee ka dhacday degmada Jowhar gudaheeda oo ninkii iska safarsaayay malayga ee soo gaaray kawaanka lagu dilay dilkii dabadeed iyadoo ciidamadii ay ku hawl jiraan inay daba kacaan ninkii dibka geystay ee baliiska oo ninka soo dhaawacay ee soo qabashiisa lagu hawl jiro waxa dhacda kale ay qasaare kala geysata dhacday waxa dhacday in la banaan baxo waxa dhacday in la tuuriyo goobaha ganacsiga waxa dhacday in la daadiyo hanti far badan la daadiyo waxa dhacday in ganacsata in la dilo arintaas iyadoo laga hadlayo la isugu yimiday maamulka gobolka iyo ka degmada iyo saraakiisha ciidamada odayaasha dhaqankan waxay isku afkarteen in maanta ka bacdi haddii dib waa dhici kariya dhibaato waa imaaysa ciidamada waa ka imaaysa shacabka ka imaaysa cidii kuleelka uu ku dhaco oo dib gaaro oo amba wiilkeeda amba gabadheeda qasaare loo geesto inay ka warsugto laamaha ammaanka ay ka warsugto oo laamaha ammaanka ilaa ay ka soo qabtaan qoftaas gacanta ugu soo dhigay inay ka warsugto waxaan dib loo aqbalaynin oo maanta laga heshiiyay in banaanbax dambe oo banaanbax nabadeed ahayn oo qasaare lagu geysaayo oo dadka hantidooda lagu daadihayo oo dhiigooda lagu dilayo inaan cid dambe banaanbax laga aqbalay aysan jirnaa go'aan lagu gaaray waxaan u sheegaynaa dadku nool degmada Jowhar iyo nawaaxigeeda inay ka fogaadaan banaanbaxyada dhibka wato oo qasaarada geysaayo oo hantida ummadda teeda lagu daadihayo oo dhiiga muslimka lagu geysaayo dib waxa la rabaa ninka asiga geesto inuu kaligiis lagu koobo ninka asiga geesto asiga soo xirmo asiga loo maxkamadeeyo laakiin cida dib geysan ee iska socota magaalada in hantideeda lagu daadiyo amba iyadoo goobtada ganacsiga soo baxay sidii wiilkaas jimcaale uu ku dhinto kala amal toorey halowda laga geliyay cid dambe oo laga aqbalayo degmada ku nool ma jirto haddaan nahay maamulka haddaan odayaasha dhaqanka iyo maamulka waxaan ku heshiin intaas شعبك وحن أجيدينا إني كفوا قدام وحياباس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. وحن أجوكنا ميشان دعدي درات خميس أدهد وحن كوهشيني سيدهر لوجو شيء مظاهرات دمبنا إنه ندعين مظاهرات كاسوكينايو قف كان هدي للدلو إن الله سوقبته أسمامك سوقبته أيقا على جرهواي oo la soo istaajiyo meesha qofkan hadii wax laga dilo inuu asigana oo maarita u deganaada ilaa meesha maamulka ka jiro Allah subhanahu wa ta'ala aydisu wuxuu ku yiri wala taziru waziratu wizra ukhra qof dambigiisa in qof kaleenta loo qabtana wax laga roon yahay waaye wixii ka soo heri waxaan baaq u jeedinaynaa bulshaweynta ama shacabka baaqa aan u jeedinayna waxa kamid ah haday wax dhacaan oo dhacdo Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisay ka dhacday hadana waxa la rabaa in la sabro oo maariti in مظاهرات لقادين مظاهرات واجرتها لكن إن مقرة إيا مسار إيا حدو إلهي كوديدين إيا مدي لسوقاتو أو مسلم كلانتو وحقلب سنين لقدلو تاس وحوايا شريعة كبود وايا مدونيني من الدوديني من يلي دوني وبالله توفيق وسلام.